habeenka laylatul qadrigu waa 7 marka waxa heli doona qofka isagu saacad walba heeganaha saasuu macnuhu noqonay waxa ku soo beegmay qofka saacad walba heeganaha magaalada agoomaha faraha badan oo in la nool inuu maalinta qof walbaaba uu ku xisaabtamo inuu bal hal agoona ciidsiyo qof baaba iska soconaya iyadoo liiskiisi la gudbiyay liiski dadka dhimanaya inuu ka mid yahay waxa loo qariyay macna daro looma qarin waxa loo qarinayaa dadku inay kala baxaan oo kala haraan waa nooc imtixaan moogti waa nooc nasiiba marka nasiib la qaadayo dadku waa kala haraya waa habeenkii weynaawi inuu weyn yahay waxa ku garanaysaa waxa lagu siiyay umri 8 iyo dhowr sano iyo siyaada nabiga kaleey salaatu wassalaam markii hore waa loo sheegay habeenka ajaa'ibda waa loo sheegay waxayna aad iyo aad rajadu u badan tahay inuu ku jiro habeenadan hadda haray bay rajada ugu badan kitaabku sheegay 25kii waa caawa waa inaynu heega galnaa dadka qayb baa showya dhigta rabadaan baa dhamaatay halkii ilaahay loo xamdin lahaa in muusika ay meel ka shaqanta ducada waa la aqbalayaa qofku wax allaale wuxuu doonayo waa inuu habeenka ku duceysto habeenadaas oo dhan habeenka kaliya ma ilaahay habeenkaas uu jaangooya sanadka dhan maxaa dhici doona alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasuulil khalqi ajmaciin muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajmaciin ittaqullaha haqqa at-taqwa wa raqibuhu fi sirri wan najwa walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa gabagabadii maalmihii u dambeeyay bisha ramadaan ilaahay jalla jalaaluhu waxaynu ka baryanaa inuu inaga aqbalo acmaasha saalixa soonka iyo sadaqada iyo salajooga salaada iyo dhammaan khayraadka aynu sameeyno qiraa'atul qur'aan ilaahay ha inaga aqbalo sida uu inoo nooleeyay shahriga bilowgiisii ama bisha bilowgeedii oo uu inoo saladsiiyey ilaahay waxaanu weydiisanaa inuu khayr noogu khatimo maanta khudbadeenu waa gaaban tahay insha Allah waxay ku saabsanaan doontaa gabagabada bisha tan iyo inagoo ciidda wax ka taataaban doona insha Allah guud ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan waxaa ku badan waxyaalaha la isugu dambi dhaafo baa laga soo buuxiyay waxyaalaha keenaya adoonka in loo dambi dhaafo bishan Ramadaan bay aad iyo aad ugu badan yihiin oo waxa la yiri qofka taagan habeenkii taagan salaada u taagan haday gelinka hore habeenkii tahay iyo haday gelinka dambe tahay waa loo dambi dhaafaa baa man qaama laylatul qadri man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sarajooga habeenkii la taagan yahayna ma aha salaada sunnaha kaliya ma khudbadeena horena ku baraarujinay salaada cishe ka bilaabanaysaa salaada cishe bay ka bilaabanaysaa qofkii u baahan in loo dambi dhaafo sarajooga habeenkii loogu dambi dhaafo sida saxda ah waa sida waa inuu salaada cishe qofku jamca yimaada isagoo waliba niyada ku sii haya salaada subaxna uu jamca ku tukan doono salaadii kale sunnaha ahayd taraawiixii tagelinka dambe waxa soo dhan iyaguna waa kamid yihiin laakiin faralku waa meel ugu muhiimsan waxa kamid oo la isugu dambi dhaafaya soomka aynu soomanahay oo aynu af xidhanahay oo aynu adan xidhanahay oo aynu arag xidhanahay ilaahay waa inuu dambi dhaafaya waxa kamid ah habeenka laylatul qadriga gaar ahaan qofka taagan oo cibaado u taagan noocay doonta ha ahaatee qofkaasna dambi dhaaf baa loo ballan qaaday waxa kamid ah in dadka sooman la afuriyo oo qofku wuxuu heli karo bisha Ramadaan iyadoo aysan ku dhaafin adigoo aan cid afurin iyadoo waxyaabaha la isugu dambi dhaafay kamid aad iyo aad u farabadan waxa kamid ah xiska Ilaahay in la badiyo hadda wax kale bay helahayn qodobka dadka oo dhan ay awoodi karaan waa cibaadooyinkaas dhikriga iyo salaada iyo waxa laga yaabaa wax bixinta ama afurinta ama sadaqada dadku ilaahay wada awoodi
laakiin meelo badan bay dadku wadaagi karaan quraanka akhriskiisa qof kasta waa ka bixi karaa dhikriga ilaahay qof kasta waa awoodi karaa in la badiyaa loo baahay xuska ilaahay marka la badiyo rabalaanta waa la isu dambi dhaafay waxa kamida istighfaarta faraha badan inuu qofku markasta astaghfirullah ilaahay uu dambi dhaaf astaghfirullah wa atuubu ilayh waa waxyaabaha la isugu dambi dhaafayo way haddii aynu sidaa u soo ogaanay in ay tahay bishii la isu dambi dhaafay oo ay aad ugu badan tahay waxyaabaha la isugu dambi dhaafayo waxaa nasiib daro loo sheegay marka qofka aan loo dambi dhaafin maadaama jaaniskii oo dhan la fidiyey oo wax kastoo la isugu dambi dhaafi lahaa bishan la dhex keenay nasiib daro weyn waxaa ah qofkii aan loo dambi dhaafin sababta oo wax kasta waa la siiyo loogu dambi dhaafi lahaa oo ka faa'iidaysan lahayd haddana may noqon in loo dambi dhaafi kaasi waa khasaare adduuniya khasaare aakhiro xadiidkii saxiixa ah waa garanaysaan nabigu inuu minbarka fuulay calayhi salaatu wasalaam 3 jeer aamiin 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 waxaa ka mid ahaa qof ay ramadaantii u soo gashay oo aan loogu dambi dhaafin ilaahay inuu naarta ku fogeeyo aamiin dheh ayaa la yidhi nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh markaasuu aamiin marka dambi dhaafkii bishan ramadaan buu ka buuxa qofka aan ramadaan loo dambi dhaafinna goormaa loo dambi dhaafi doonaa waa su-aal meesha ku jirto marka ilaahay baa daahaya laakiin waa inaynu dadaal muujinnaa oo ducada badinnaa oo istighfaarta badinnaa oo arrimihii hadda aynu soo qodobaysanaynay waa inaynu aad u badinnaa si loogu dambi dhaafo ha ku talagelin rabadaantan hadday iga mahmaahatay rabadaano danbaa laga dambi dhaafi doonaayo aan wax badan oo khayra samayn doono tan baad leedahay tan maalinta aad taagan tahay saacadda aad taagan tahay baad la hubaa baad hubtaa inaad sii noolaan doonto taasaa lagu diray marka qofku inuu aad iyo dadaal fara badan muujiyo weliba gaar ahaan 10kan dambe waa 10kii naarta la iska xoreeyay العتق من النار وطبعا كان نار تلسك حري قفكم مركا إنه كول وله أو أي كوين تهي إنه كم من نقطة النار تلقى حري هبين كي سوتشي مالين كي صنتيس إلى شني قرآن فربنا آخرني والد ككدب عيسني مساكين تقعان توفيدني كلمة دونا أحسن حسك إلهي وحصلنا ما اللي سجب بهاي مساجد كهذه يجعل اعتكاف سنة وقفك وكبدني هاي وكا tobankan habeenee dambe waa wada ogtihiin waa tobanka khayrkii ramadaan oo dhan isku fuuqsatay oo la wada geliyay ilaahayna wuxuu yiri inna rahmatallahi qariibun min almuhsiniin naxariista ilaahay waxay ku dhowdahay dadka samafalayaasha samafalku marka waa kelmad caam oo ilaahayna waa loo samafalaa makhluuqiisna waa loo samafalaa saasii ilaahay an ta'budu allaha ka'annaka taraa إن سفي عن عبدوية سمفلك لقى باي حق إلهي جل جلاله ورحمتي وسعت كل شيء مركا وحينو باهنا هاي غضب كاس إنه آدي آدو حسوسنا إنه وإنه مسكح قوة هاي إنه حيالها اللي يسود بدافع بشهر رمضان لو يري إنه قفل باب آدي آدو بدلال باي هبينك ليلة القدر كلمة القدر ووينان وهبينك وينان معناه دوي تفاصيل فربنا بعلمه كسائرين لكن القدر والعظمة وما قدر الله حق قدره وهبينك ويناوي إنه ويه وحكو قرانسا وحالو سي عمري سديت يطور سنة السيادة بهبينك اللي عمري قاوي يعني عمري عبادة هداد سديت يطور سنة نوران لهايد عاد سمين لهايد بهبين كاس كاغا فيلين ياهي هبين كاس كو اوفني marka habeen weyn ma yasnaay habeen aadi aad waa habeen ay malaa'ikti ilaahay soo degayaan dhulka ay imanayaan waa habeen nabadgeliye ah oo shayaadiintii iyo sharwadayaashii laga nabad galay waa habeen naarta la iska xoreynayo waa habeen qofka la waafajiyaa khayr ka maqan ma jiro qofka la seejiyaana khayrkii waa la seeji laylatul qadri suurad dhan baa ilaahay ka soo deji suurad dhammaystiran baa keligeed habeenka ka hadlaysa meel kalena waa lagaga hadlayo oo dee la sheegay
acmaasha sanadka dhici doona waxyaabaha sanadka dhici doona ilaahay habeenkaas uu jaangooya sanadka dhan maxaa dhici doona qofka geeriyoon doona iyo qofka dhalan doona iyo qofka dhisan doona iyo qofka dheeraan doona iyo qofka hantidu ka baaba'ayso iyo ka loo dambi dhaafay iyo ka wax walba kullu shay marka culimadu waxay yiraahdeen qof baaba iska soconaya iyadoo liiskiisi la gudbiyay liiskii dadka dhimanaya inuu ka mid yahay baa la gudbiyay oo la jaangooyay waxa weeye haddana waa iska soconaya oo banaanku iska cayaaraya waa bani aadamku war la'aan tahay sawi waa inuu qofku ku talagalaa inay geeridiisu mar walba ku dhici karto oo xogtu ay dhan tahayba waa arrimaha muhiimka walaalayaal habeenkaas sida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku soo aroortay 10kan habeenee dambe ayuu ku jiraa gaar ahaan tirada isdheer 22 ilaa 29 intaas maalmaha habeenadaas dheer 22 23 25 27 waxayna aad iyo aad rajadu u badan tahay inuu ku jiro habeenadan hadda haray bay rajada ugu badan kitaabku sheegay 25kii waa caawa waa inaynu heega galnaa 27kii waa ku xiga waa ka dambeeyay 29kii 27 iyo 29ku waa rajada ugu faraha badan weey ee culimadu ay sheegeen saxaabada qayb kamid ah ayaaba waxay yiraahdeen waaba 27 habeenka laylatul qadri waa 27 waa un soo dhadhaweyn waa la weheshanayaa saxaabada hadalkooda waa la weheshadaa waa la dugsadaa laakiin aayad quraan iyo xadiis midna ma laakiin marka ay diinta ka hadlaan hadalkoodaas waa la tixgelinay waa lagu camal falayaa waa loo dadaalay sababtoo ah waa niman xog badan hayay diintu markay soo degaysay bay ogaayeen wax badan bay og yihiin calaamadihii nabigu sheegay ay wada hayaan waa rag xogogaala weey oo goobjoog ah nabiga calayhi salaatu wasalaam markii hore waa loo sheegay habeenka ajaa'ibda waa loo sheegay waa habeenkaas balay isagoo sida oo og oo loo carifay oo si go'an loogu sheegay intuusan ummadii u sheegin baa laba nin asxaabtii kamid ah xogaas afdhaafay oo khilaaf dhex mara labadiibu kala dhex galay marka oo musaalaxa ka galay intuu labadiina ku maqnaa baaba la ilowsiiyeyba lixikmatin baaligha xikmad ilaahay wey ilaahay xikmadiisa ayuu nabiga u ilowsiiyey kadibna habeen ay ahaydba waa la ilowsiiyeyba soo maaragta halkaa waxaynu ka qaadanaynaa khilaafku waa wax xun inay dadku isqabtaan oo iskhilaafaan mashaakil badan bay keentaa oo diintooda dhaawacda halkaa waa laga qaadanaya arrinta tan saxaabadu inay iskhilaafeenna waa mid ilaahay qoray oo qadaray weey oo ilaahay wuxuu doonayay habeenka inuu qariyo marka sababtii loo qarin lahaaba iskhilaafkaas dhacay waa la ilowsiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin in la ilowsiiyey bilaash maaha in la ilowsiiyey wax iska dhacay maaha waa wax ku salaysan xikmad cadiim ah iyo falsuubanaan ilaahay uu leeyahay waxaa loo qariyay macna daro looma qarin waxaa loo qarinayaa dadku inay de kala baxaan oo kala hadhaan waa nooc imtixaan moogti waa nooc nasiiba marka nasiib la qaadayo dadku waa kala hadhaya nasiibkiina qofun baa ku guuleysanaya Soomaaliya marka imtixaan la qaado imtixaankii qofna waa ku soo beegmaya qofna waa saaranay Soomaaliya garan marka hadii la oran lahaa waa habeen heblaaye hadii la oran habeenka 25 hadii la dhihi lahaa dadku habeenada kale intay seexseexdaan dhamaantood bay habeenka isku soo xiriirin lahaayeen oo qof walba uu dhigaa waat laakiin saa lama rabade waxa la rabaa inay kala hadhaan qofka 30kii Ramadaan ba soo jeeday oo 20kii horena taraawiixdii iyo quraanka iyo khayrkii 10kii dambe markay soo gashayna habeenada isdheer kaliya aan soo jeedin 10ka habeen soo jeeday iyo qofka habeen uu soo kacay de labada qof miyay isku meel iman karaan ma iman karaan nasiibkaas loo kala reebay marka waxa heli doona qofka de isagu saacad walba heeganaha saasuu macno noqonay waxa ku soo beegmay qofka saacad walba heeganaha marka adigu marka waa inaad heegan iska saacadaha habeenka intiisa badan
maadaama ayna wax kale qabanin oo Ramadaan iyo khayr ay iskaga jir oo maalintii ay nin badan oo kamid ah seexan kan hadeen doono habeenkii inay hurdo kugu dhaafto iyadoo 10kii dambe lagu jiray waa wax aad iyo aad looga fiican marka waa isku boorinaynaa waxyaalaha aadka u qiimaha badan oo habeenka la sameeyo ducada kamid ah ducada waa la aqbalaya qofku wax allaale wuxuu doonayo waa inuu habeenka ku duceysto habeenadaas oo dhan habeenka kaliya ma gaar ahaan habeenka laylatul qadr hadii ilaahay waafajiyo waa inuu wax kasta ilaahay u gudbistaa oo duca oo loo aqbalaya oo waliba uu ku dadaala aad iyo aad ugu dadaala quraankii baa la akhrinaya salaadii baa loo taagan yahay ilaahay baa la xusaya ilaahay baa la baryaya waxba la bixinaya waka acmaasha khayrka oo qof walbaaba intuu qaban kara qabanay dadaal fara badan baa wala la yeelay looga baahay dadaal aad iyo aad u fara badan waxay culimadu oran jireen waa istinfaar yaani marka habeenadan soo galaan 25 iyo 7 iyo 20 iyo 9 iyo 20 dadku waa inay noqdaan dad sidii dad ciidan lacag wax ku soo dhaceen oo kale dad ay xaalad qaylo dhaan oo kale wax qaylo dhaan oo kale inay yimaadeen oo kale inay dadku yihiin baa loo baahan oo habeenkii ay badan soo jeedaan oo habeenkii hadii hawle ugu timaado ama colaadi ugu furan tahay ama geeri ugu furan tahay saxan man waa sidaas oo kale 10 kan habeen qof xaalad la soo diristay oo heegana oo kale waa inaad halka waxaynu kaga ambabaxaynaa hadii la yiraahdo wixii ku saabsanaa habeen 10 ka habeen dambe maalinka ciidka bishu markay gabagaboobayso waxyaabaha leeynaga baahan yahay waxa kamid ah inaan ilaahay shukrigiisa badano ilaahay inaan ku xamdinaa loo baahan oo marka aad bishii dhamaysatay dad badanna ay dhexda ku hadheen oo qaybi dhimatay oo qaybi bishii wax yar ka hor ay dhimatay adigu sanadka waad soontay cibaado fara badan baad qadimatay waxa soo dhan baad nasiib u yeelatay miyaan laga rabin marka inaad ilaahay ku xamdido illa waa nicmo ilaahay ku siiyay adigu maaragtay cibaadada tan adigu lama dhiman marka xaqiiqada la eego inagu waxba lama dhiman ee waa laynoo diray waana laynoo fududeeyay albaabkiina waa laynoo ballan marka ciddii cibaadada tan ina waafajisay oo inoo calaftay oo bishan inoo keentay oo inoo soo hadiyeysay waa Allah jalla jalaaluhu oo naxariistiisa inoo furay inaynu gaarna ilaahay waa ku mahadnaqaynaa in badan ilaahay waa ku mahadnaqaynaa inaad bishii ramadaan nasiisay oo hadiyadii ilaahay waa ka guddoonay waana ku mahadnaq aayadaha quraanka ee suuratul baqara ee ka hadlaya ramadaanta waxa kamid ahaa markii la yiri soonka waa waxa lagu soo gabagabeeyay walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun bisha markay gabagaboobis waxa la idinka rabaa inaad ilaahay weyneysaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa takbirt ilaahay baa la weyneeyay wax kasta oo ilaahay lagu weyneenayo waa in maalinta la yimaada waa in ilaahay la weyneeyo وإن أستامها الوينية أستامها دينت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دينت أستامها اللي رأي أستامها وين دينت إسلام كي النبي محمد دينتي أستامها اللي أستامها وحكم عيدها كمل معلمها عيدها فرحة وين ومضى إسلام كورن قارد كستل الدريمي للجذر يعمش waxay ka mid tahay astaamaha diinteena ka mid astaamaha diinta waxa kamid ah in ilaahay aad loo weyniyo astaamaha diinta waxa kamid ah in farxad badan la muujiyo maalinka oo gaaladu waa ka naxayaan oo munaafiqiintu waa ka naxayaan cadawgo dhan maalinta qoomay u tahay astaamaha diinta waxa kamid ah de acmaasha leeyooga baahan yahay maalmaha ciid waa inaanu sameeyno maxaa kamid ah fitradii baa kamid ah waa inaanu fitradii diyaarinaa زكاة الفطر ثم قرنسي أما صدقة الفطر يعني الصدقة دي لو أفري فطر وحلو بعي فطر وأفرتان صومكي أردن بينو كسو أفرني مركا حلقة أينو أفرني أو هبينكا أوغو دنبيسا هبينكا أوغو هرسا بيشي كلا أيا
dee rabadaantii waynu ka afurnay sadaqada la bixinaya marka waa tii lagu afurayo khayr baa lagu soo gebagabeeyey bishii ramadaan soo maaragtay waa afurkii waxaa markaa la siiyaa dadka masaakiinta baa la siiyaa saac baa la bixiyaa saac marka miisaankeena la eegana waa 2 kiilo iyo bar wey inuu qofku intaas ka diyaariyo wey 2 kiilo iyo bar raashin ah quutul qaalibka majoritiga waxa aynu quudano baynu diyaarinana 2 faa'iido loo sheegay sadaqada la bixinay 2 faa'iido la sheegay waa mid adigay ku taahirinaysaa dambiyadii iyo wixii rabadaantii iyo wixii aad galgashay iyo qofkii soomanaa hadduu laqwi maalin hadal laqwiya iyo dambi iyo wax dhacdhaceen iyo ficil xun inuu meel xun isha ku eegay iyo waa loogu dambi dhaafayaa maalinkaas waa laga qubays wey waa loogu qubaynay waa midda kale ee dadka masaakiinta ah baahanna quud bay u tahay oo waa quudanayaan oo way ku farxayaan oo sax ma aha dadna inay si fiican u ciidsan yihiin oo ay labisan yihiin way aad iyagii carruurtoodii reerahoodii ay dhar iyo wax fiican soo wada iibsadeen raashin badan ku afurayaan masaakiintiina ay meel cilaa fadhido dee maaha mid saxan maaha marka dadka muslimiinta ay waa isku dareen maalintaasi waa maalintii la isla dareen qaadanayay in la dareen qaadanana dadka masaakiinta waynu ka farxinaynaayo agoomaha aynu ka farxinayna magaaladeennan duruuf badan baa ka jirta duruuf aad iyo aad u badan abaaro iyo colaado ina soo maray iyo maciishado qaaliya iyo baahi iyo dhaqaale yaraan waxyaalo badan baa ka jira ilaahayna waa inuu imtixaanaya maalmo baa sabirkeenna iyo iimaankeenna iyo waxbixinteenna iyo isu naxariisashadeenna iyo baa la eegayaa maalmaa layna eegayaa hadhowtana waa la doogi doonaa insha allahu tacaala khayr baa ka dambayn doona marka waxaynu u baahannahay magaalada agoomaha faraha badan oo ina la nool inaynu maalinta qof walbaaba uu ku xisaabtamo inuu bal hal agoona ciidsiiyo kii 10 agoon ciidsiinay kii 30 ciidsiinay kii qof ciidsiinaya kii 2 ciidsiinaya waa waxyaalaha aad iyo aad u muhiimkaayo ilaahay markuu ka arko il naxariis la ay kugu eegaya waxaana laga yaabaa inayba noqoto camalkii aad jannada ku gali lahayd camalkii inama ogin camalkii laynaga aqbalay ee aynu janno ku galay miyaynu garanaa ma garanaa mid ka mid ah baa acmaashaas laga yaabaa adigu aadan dareensanayn ilmo yaro aad madaxa u salaxday oo agoona oo aad xoogaa lacaga kaga farxisay baaba laga yaabaa tii jannadaba aad ku gashay inay tahay nabiguna wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam la tahqirana min al-ma'ruf shay'an wanaaga lama xaqiro wanaaga xaqirin oo hayaraysan oo wax weyn ma aha labada ragcadood oo aad tukatay baaba laga yaabaa oo adiga aan kula weynin oo barqadii aad tukatay inay tahay tii jannada aad ku gashay dambigaagiiba lagu dhaaf ilaa adigu ma ogid marka inaynu ka war hayno fidriga la diyaariyo fidrada waxay waajibaysaa qorraxdu markay dhacdo habeenka ciid soo gasho halkaasay ka bilaabanaysaa oo la bixinayaa ilaa salaada inta ka horeysa saasaa loo baahan marka dadka had iyo jeer way habsaamaano qalab baa inuu timaado qofku waa inuu diyaariyo habeenka hadii la gaaro fidradii diyaari sida ugu si fiican oo afdalka ah waxa weeye subaxa inaad bixiso salaada ka hor inaad bixiso weeye inahaasa ugu muhiimsan maalmaha ciidda iyada laftirka daacaadku waa inaynu badinaa oo ilaahay aynan caasiin marka ciidda la gaaro ilaahay baa la caasay waxaad arkaysaa dad uun ilaahay caasnay oo meel hees laga shiday dadka qayb baa showya dhigta rabadaan baa dhammaatay halkii ilaahay loo xamdin lahaa in muusika ay meel ka shidanta oo munkar la sameeyo oo qamaar la sameeyo oo showya la dhiganayo waa waxyaalaha ilaahay caradiisa soo dhaweeyay اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين.